ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابتي دمانتين وين سلام هيا ومدحين الفيسبوك وهودا السلام قال إن سومران هيا مرة إن نقول إرادة وحنقال لنا إن يرأى كوبان سوماليان سببت إمر الجوليستو iyo anaasir yar oo mar walba maaragtay Soomaaliland horumarkeeda ka xun Soomaalida dhamaanteed waxaan u baaqayaa ama u soo jeedinayaa aan leeyahay Soomaaliland waa dad tashaday oo xornimada iyo midnimada iyo maaragtay wadajirka ku tashaday reer Puntland waxaan leeyahay maaragtay dagaalka amar walba la galeysaan Soomaaliland waa in iska joojisaan oo ka digtoonataan laana Soomaaliland ma rabto reer iyo qabiil iyo ma aha danaysi gooniyo waxay rabtaa xuduudeedii ee lahayd gobolada waqooyi ee Soomaaliland wadamada Ingiriiska isticmaalka ay uga tageen ay u calaamadeen kaliya ay doonaysaa inay maaragtay calankeeda ay ka surato reer Puntland waa ku dardaran yihiin inay qabyaalad ama qabiil ama reeraysi u doonaan ay dhahaan waa harti iyo waa beel daarooda iyo maaragtay Soomaaliya inay maaragtay dhahaan qaranaan noqonay qabiil ma jiro qabiilku waa dhamaaday dadka maaragtay Facebook-da iyo dhigi jiray qabiil ma jiro qabyaalada ka hadlaysa qabyaaladaysta waa tahay hadda markii Soomaaliland laga hadlayo maxay u qabyaaladinayaan dadka leeyihiin waa niman hartiya waa niman daarooda qaramada mirtamiya markii Soomaaliland la joogo Soomaaliland lafteedu waa qaran waa shacab waa dad doortay oo cod iyo nin u doortay oo kalsoonidii siiyay Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi doorteen ayagoo ka raalihay doorteen ayagoo rabay doorteen maanta waxaan arkaynay magaalada Buuhoodle oo dhan oo soo mudaaharaatay oo dhahaysa Muuse Biixi ha noolaado Muuse Biixi aan taageersana madaxweyne ku-xigeenka Puntland meesha laga oriyay dhagaxa loogu tuuriyay dhagax ya wallahi billahi reer Buuhoodle rag waaye beesha daaroodna maanta guul ayay gaareen aan leeyahay waliba qaasatan beesha dhul mahantay waa guuleysteen aan leeyahay waxba yaan daaroodeen nimankan reer Puntland waa meesha isticmaalka iyo ma aragtay kala sareynta ay ka bilaabato cadaaladba kama jirto waxa waaye reer boqor baan la yiraahdo reer Suudaan baan hay anaga aan dheeray meesha dhan ay taalo waa Puntland qabyaalada dhan meesha ay ka soo ururtay qabyaalada waa Puntland dhul baahantana waxa uma ogolo xabana ma siinayaan danna ka malay inay ku orka casraan ay doonayaan inay ku orka casraan oo ku daneystaan rabaan dhul baahanta maanta dantiisa waa gartay viiban leeyahay aniga qabyaalada hadda kadib waa iska deynaya maadaama aan arko dhul baahanta oo Soomaaliland isaaq la midaysan oo isaaq taageersan aniga horta bari war qabyaalad jecel igama ahayn qabyaaladana dan kama ahayn laakiin waxaan rabaa ummadda waxaan rabaa inaan tuso inay qabyaalad ay jirto maaragtay meesha iga soo wacay oo maaragtay messengerkan laga soo wacay inaan leeyahay intaas kaliya qabyaalad inay jirto oo maaragtay dad badan oo qabyaalaysan oo dawladda qabyaalad ku taageersan inay jiraan oo qabyaalada aan laga maarmin ayaan dadka tusay laakiin mii nin qabyaalada jecel oo qabyaalaysta maantana daarood guul weyn ay gaareen waliba dadka amaarka meesha aan ka bogaadinayo oo inaan ku daydo oo qabyaalada aan iska dhaafo aan rabo waxay tahay nimca dareen gabadha leeyahay nimca dareen oo kale inaan noqdo oo Soomaali inaan u sinaado oo baasha qabyaalada aan iska dhigo maaragtay dhul bahantaha qaarkiisa qabyaalada iska dhigay oo Soomaaliland inay wax ku darsadeen oo aaminsan taageersan oo kale inaan noqdaan rabaa baasha qabyaalada waan iska daayay hadii Ilaahay dhul bahantaha reer Buuhoodle aan ku dayday nimca dareen aan ku dayday aniga qabyaalada oo ma jecleen waa la igu kalifay markaan arko dad qabyaalaysan oo farmaajo waa qaran farmaajo waa dawlad daaroodnimo ku taageeraya markaan arko oo marka nin kale oo qabtan ay dhahaan waa qabiil oo maaragtay Puntland lacag soo ururinaya qabyaalad ku taageeraya farmaajona waa qaran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه رير سوماليلاند فيفا أنا لا رير سوماليلاند وجوليستين لأنه أنا سوماليلاند محن كتاجر صابت عن كتاجر وامحي ديمقراطية يكلم بيت قاتين يورمان جمنا ديمقراطية مرة دولة دكتاتورية دولة إمارة كوريا وقوية كلاه نقول كسمايستان كارما دت كان باهي ودنتان ورباهي ماله ما فائدة مال دت كوا أنا تشان أيوة كتشان قاصة رير بنادر والسلام عليكم الله هل كان إنك السلام مدحوينا فيسبوك أد وحنا تاجر سوماليلاند فيفا سوماليلاند صوت عن كل تاجر وعدد تحقيق
qofka kale shakhsiyaadku tixgeliya muuse biixi markuu hadlaayo wuxuu ka hadlaa dadka inay isku maslaxad yihiin soo u soo jeedi lahaa soo iskaga dhaadhici lahaa soo ku kasba lahaa laakiin madaxweyne farmaajo maya madaxweyne farmaajo wuxuu ku dadaalaa dadka soo xoog uu qaba lahaa soo qorag uu heli lahaa soo hub uu heli lahaa soo ciidan uu heli lahaa maba isku dayaba dadka kalsoonidooda siduu ku heli lahaa kamaba maqnaaba kalsoonida shacabka inuu helo laakiin muuse biixi iyo reer somaliland maanta dhulbahante iyo reer maaragta laascaanood waxay ku dayahayaan maslaxo walaaltinimo isjacayl soo dhaweyn qora marna kuma dayaan si ay u qanci lahaayeen oo ay u qanci lahaayeen somaliland inay ka mid yihiin dad reer somaliland inay yihiin waxa reer somaliland ay helayaan inay helayaan laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo kama heno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka iga bara aad iyo aad baan kuu salaama dhammaantiin waa salaamantiin fifa somaliland fifa nimca daraan aan leenahay